Somali Dementia xusuus guur fariinta adeega bulshada waxaa idiin soo gudbiyey isxilqaamayaal ka socda hay-adda America Minnesota and Wisconsin waxaa soo saaray Globe Consulting and Researching Alzheimer ama ilowsho dhibaatada caafimaadka bulshada maxaan u danaynaynaa Alzheimer ama xanuunka ilowshaha waxaa la filayaa in faafidda xanuunkan uu saameyn doono 13.8 milyan qof oo Maraykan ah sanadku markii uu yahay 2050 ayna ku bixi doonto lacag dhan 1.1 trilyan oo dollarka Maraykanka ah daryeelka caafimaadkooda ugu badnaan 3 meelood 2 meel markii loo qaybiyo dadka qaba waxay u badan yihiin dumar waxaana la filayaa in cimrigoodu uu dheeraado dadka hasinka u saaran khatartan madowga da'da ah waxay xanuunkan uga badan yihiin cadaanka labanlaab waa maxay dementia ama xusuus guur dementia waa erey loo isticmaalo hoos u dhaca tamarta dhimirka taas oo mid daran ah caqabadna ku noqota nolol maalmeedka waxaa tusaale u ah xusuus guurka hoos u dhac weyn oo ku yimaada fikirka kaas oo caqabad ku noqda shaqsigu inuu ku filnaado shaqo maalmeedkiisa waa maxay dementia xanuunka Alzheimer ama ilowshaha ayaa ah waxa ugu badan oo sababa dementia ama xusuus guurka haddii aad adiga ama shaqsi aad taqaan aad ku aragtid xusuus guur waa muhiim inaad booqataan dhakhtarku wuxuu meesha ka saari arrimo kale oo loo malayn karo dementia ama xusuus guur arrimaha aanan ahayn dementia kuwaas oo sababa xusuus guurka waxaa ka mid ah nafaqa darro dawooyinka qaar istaroogga aanan la dareemin niyad jabka walbahaarka walwalka iyo wixii la mid ah waa muhiim inaad ogaatid dementiyadu inaysan la mid ahayn ilowshaha la yimaada gabowga waxaad isweydiin kartaa sideen ku ogaan karaa in hilmaamkaygu uu yahay mid dhib keeni kara qaabka ugu wanaagsan ood ku ogaan kartid inaad u baahan tahay la talin dhakhtar waa inaad baratid xusuus guurka iyo xiriirka u dhexeeya gabowga caadiga ah qaabka ugu fiican ood ku ogaan kartid in adiga ama shaqsi aad taqaanid uu khatar ugu jiro xanuunadan waa inaad barataa 10 astaamo ee digniinta ah iyo sida looga duwo xusuus xumida caadiga ah ee gabowga waa kuwan 10 astaamood ee digniinaha iyo cadeymaha calaamadaha xanuunka 1 xusuus guur caqabad ku noqda nolol maalmeedka calaamadaha ugu badan ee Alzheimer waa xusuus guur khaasatan hilmaamka xogta dhawaan shaqsigu uu bartay gabowga caadiga ah qofka oo hilmaama magacyada iyo ballamaha laakiin gadaal ka xasuusto 2 caqabad xagga qorsheynta ama xallinta dhibaatooyinka ah dadka qaar waxaa laga yaabaa inay la kulmaan isbeddel ku yimaada awoodahooda ay ku raacaan qorshe degan ama dhanka xisaabaadka waxaa laga yaabaa inay dhib ku noqoto la socoshada xilliyada la bixiyo kharashaadka billaha ah gabowga caadiga ah khaladaad marmar dhaco sida xisaabinta lacagaha baaqiga ah markii dukaanka la joogo 3 culays kaa saaran dhamaystirka shaqooyinka caadiga ah sida kuwa guriga shaqada ama damaashaadka dadka qaba xanuunka Alzheimer waxaa aalaa dhib ku ah dhamaystirka shaqo maalmeedka sida inaysan xusuusan tukashada salaada ama aysan xusuusan sharciyada salaada ayna salaada isaga dhex hadlaan haddaba waa maxay isbeddelka la xiriira gabowga caadiga ah mararka qaar inuu qofku hilmaamo tukashada salaada laakiin uu dib ka xasuusto markii la gaaro salaada xigta 4 jahwareer xagga waqtiga iyo goobta ah dadka qaba Alzheimer ama ilowshaha lama socon karaan taariikhda xilliyada iyo waqtiga goortuu dhaafay dhib ayay ku tahay fahamka waxyaabaha qaarkood haddii aysan markaa dhacay mararka qaarna waxayba hilmaamaan goobta ay joogaan iyo siday ku yimaadeen gabowga caadiga ah waxay ku jahwareeraan maalinta isbuuca ay tahay laakiin dib ayay ka gartaan 5 inay dhib ku tahay fahamka sawirka muuqda iyo isku aadinta godadka isleh xanuunka Alzheimer waxaa calaamad u ah inay dadka qaar qabaan cillado xagga aragga ah waxaa macquul ah inuu akhriska garashada waxa fog iyo kala sooca midabaduba ay ku adag yihiin gabowga caadiga ah aragga oo isbedela asagoo ku xiran hadba caadka isha ka saaran tusaale qofka oo doonaya in loo soo dhaweeyo shayga si uu u arko 6 dhibaatooyin hor leh oo ka haysta erayada ku hadalkooda iyo
qoridoodaba. Dadka Alzheimer ama ilowshaha qaba waxaa dhib ku ah la socoshada ama ku soo biirista wada sheekaysiga. Waxaa suuragal ah inay joojiyaan wada sheekaysiga oo socdo, ayna garan waayaan sidii ay horey ugu sii wadi lahaayeen, amaba ayba hadalkoodii dib ugu soo noqnoqdaan. Waxaa sidoo kale suuragal ah inay dhihi kari waayaan erayada ay u baahan yihiin, amaba ay dhib ku tahay helidda erayada ku habboon goobtaas, amaba ay adeegsadaan magacyo khaldan. Gabowga caadiga ah marar kooban uun inay ku adkaato helista erayada ku habboon goobta. 7. Luminta walxaha iyo kariwaaga dib u helidooda. Shakhsiga qaba xanuunka Alzheimer ama ilowshaha waxaa suuragal ah inuu dhigo walxaha meel aan la dhigi jirin, tusaale in furayaasha uu ku rido filinjeerka. Waxaa sidoo kale suuragal ah inay wax lumiyaan ayna dib u heli kari waayaan. Gabowga caadiga ah luminta walxo marmar iyo in hadhow tillaabooyinkoodii dib u raacaan soona helaan shayadaas. 8. Go'aan qaadashada oo yaraata ama xumaata. Dadka qaba xanuunka Alzheimer ama ilowshaha waxaa suuragal ah inay dareemaan isbeddel dhanka go'aan qaadashada ah. Tusaale, waxaa laga yaabaa inay go'aan khaldan qaataan markii ay lacag isticmaalayaan, sida inay lacag badan iska siiyaan dad qalaad. Waxaa sidoo kale suuragal ah inaysan aad u danayn u labiska iyo nadiifinta naftooda. Isbeddelka la xiriira gabowga caadiga ah inuu qofku go'aan qaadasho xun sameeyo mar dhif ah. 10. Dabeecadda qofka oo isbeddesha. Dabeecadda iyo habdhaqanka dadka qaba xanuunka Alzheimer way isbeddeshaa. Waxay noqon karaan qof jahwareersan, shaki badan, niyad jabsan, baqaya ama walwalsan. Si fudud ayayna u xanaaqi karaan marka ay guriga ama shaqada joogaan. Gabowga caadiga ah la imaanshaha hal qaab oo wax loo sameeyo, haddii qaabkaas wax laga beddelana inuu qofku ka xumaado. Haddaba waa kuwan waxyaabaha aad samayn kartid markii aad isku aragtid astaamaha. Haddii aad adiga ama qof aad taqaanid aad ku aragtid 10 astaamood ee Alzheimer ama ilowshaha, ha iska indha tirin. Dhakhtarkaaga ballan ka qabso.